wadani waanu maanta afkooda ku wada hadlayo sida ka warqabteen beryahan shirgudoon waxa labada xisbi oo ah gudoomiye Faysal markuu maqan yahay shirgudoon waxa socday oo ka warqabteen ergo iyadoo xilqaantay sidii dhaqanka Soomaaliland ahayd markay arrimaha adkaadaan ergadaas oo dhexdhexaadinaysay xisaabta mucaaradka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa ergadaas labada xisbi mucaarad waxay siiyeen kalsooni buuxda madaxweynuhuna wuxuu siiyey kalsooni buuxda Soomaaliduna waxay ku mahmaadaa ergo lama diro ama lama diido go'aanka ergadu ama ha qadhaadhaado ama malab ha ahaado waxa caadadu tahay in la aqbalo go'aanka ergada aad kalsoonida siisay marka waxaan u sheegayaa shacbiga Soomaaliland iyo dhammaan dadka daneeya Soomaalilandba iyo taageerayaasha labada xisbiba in labada xisbi si wada jira u aqbaleen go'aamadii ay soo saareen ergada dhexdhexaadintu waxa kale oo ku daraya intaa ninkii gardiidka ahaa maantana ha ku darsado ergadiid waxaan idin akhriyi doonaa war murtiyeedka labada xisbi mucaarid ee ku aadan go'aamada ay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta axsaabta iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa waxaana soo gaadhay qoraal ka soo baxay 16kii bisha oo shalay ahayd guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa labada xisbi markaanu eegnay xaaladda guud ee dalku marayo markaanu kan ku gaadhnay inaanay jirin xukuumad u maqan dalka iyo dadka oo danaynaysa midnimada wada jirka iyo jiritaanka ummadda markaanu aragnay inaanay xukuumaddu diyaar u ahayn qabsoomidda doorashooyin sharci ah markaanu aragnay baahida ay bulshada reer Soomaaliland u qabaan inay qabsoomaan doorashooyinka sidii doorashooyinka golayaasha markaanu aragnay ama tixgelinay sidii dhaqanka u ahayd iyo caadada in la aqbalo go'aamada guddiyada dhexdhexaadinta waxay labada xisbi mucaarid go'aansadeen mar labaad ma ku celinayaa inay aqbalaan dhammaan go'aamadii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda madaxweynaha iyo xisbigiisa annagoo eegayna danta guud ee qaranka midnimada ummadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda waxaanu meesha ka saaray tabashadii aanu ka qabnay komishankii hore doorashooyinka haddaanu nahay xisbiga wadani xisbiyada mucaaridka ee u cidiya wadani waxay u mahad celinayaan guddigii dhexdhexaadinta waxaanu ka xunnahay siday ula meeraysteen xukuumadda iyo xisbigeedu waxaana ummadda u sheegaynaa inaanaan annagu la meeraysanayn ummadda waanu aqbalnay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالنا ما